ninkan in badan buu qurba joog jiray 16 sano qurba joog ku maqnaa haduu shaqaysanaya inuu ka soo shaqaystay ahayd laakiin doobiile anagu ma naqaano wax anaga oo doobi noqdana ma arag waan ku ceebeynaya waan ku caayayaa aad iyo aad baan uga xumahay gurigiisa iyo ilmihiisa iyo isaga toona in arko ma jeceliba sababtuna waa maxay sababtu waxay tahay wax dhaqdhaqaana weligeena ba yeelanin anagu suldaamaan ahayn nolol xayaataan ku soo koray sharaf baanu lahayn isbaan lahayn marka wax dad leeyahay dhaqa hadda ka hor maanan arag taas uu ku ceebeysay waan ku caayayaa waan kaga cararayaa intaan ku soo baxay meesha uu joogayaan geeska mar xagga ayna ka mariyaan laynagu arkin meeshu shaqaale leedahay dad baa ka shaqeynaya marka ma kaliya inuu isagu leeyahay darteed baad waxaan oo dhan u sameynaysaa taasaan u sameynayaa dhar buu dhaqayaaba haddii marba la yidhi annaga dawaynoo dhammaatayba kaligeena ma aheesaan reerunahay ruuxa laba madaxu dhulka ku dhuftay kuwii dabaduhu jiray waa soo cabaadayaan hadda waxay ka istaagtay lacagaan u soo diraynaaye waxaanu faraha la galaha ka baxo nin hadda calal dad leeyahay saas ugu foorsaday dadka xanuunsanaya meelaha la geeyo inaan geyno mooyaane jigjiga meelaha dadka xanuunsan la geeyo haatan waxaan la fadhiyaa Hinde Shukri oo Sidiiq xaaskiisa ah isla markaana aan la dhacsanayn sida la ii sheegay arrintan doobiilaha ee Sidiiq ku dhaqaaqay hadaba walaal sideed u aragtaa bal Sidiiq iyo arrintan biilkiina uu ka soo saaro waxaan u arkaa qof waaran inuu yahay kumana faraxsani xitaa biilka ma rabo aan ku iri ha iga shaqaynin doobiile wiiga qaadan waayo maxaan ku dhahatay waan ka shaqaynayaa maadaama iga qaadan waayo aan kana geey waayo sidoo qof waalan baan uga samray waan ka waayo maxaan ku dhahay toy ka geenaashaha aan baan kula socdaa xitaa dadka qaraabadu markuu dhaho ninkaagu muxuu ka shaqeeyaa waan qariyaa dukaan buu haystaa waan dhaha anoo maxaan ku dhahay diidaya inaan dhaho doobiilu ka shaqeeyaa laakiin dad badan waxay aaminsan yihiin arrintani arrin wanaagsan inay tahay lacagna laga heli karo taas kuma muuqato miya may ima muuqato aniga xitaa haduu lacag ka helo ima muuqato inuu sharaftiisa ku dirayo bay ila tahay isaga baa maxaan ku dhahay magaciisu raacaya doobiil ninka ka shaqeeyaa leh ama ha dhaqa isaga ama una dhaqan isagoo laga yaabo inuu dharkii xajfuujinaynin baa leeyahay ninkii doobiil ka shaqeeyaa laakiin anigu isba waxaan diidanahay doobiilahaas ka shaqeeyaa hore wuxuu ka shaqeeyay ma aragtay may wax isirkayga xitaa dhagna kuma maqal wax isirkayga ka shaqeeyana ma jiro laakiin armay sababtu tahay sababtaas oo wax isirka ka shaqeeya iyo fikir badan aadan ka haysanin ee hadaad fikir badan ka haysan lahayd aad oran lahayd oo soo shaqeeyo aroorti kale hin lahayd may oo ma kale doobiila maxaan ku dhahay ka soo shaqeey ma dhahan xitaa hadaan arko bal hadaba aan weydiino Sidiiq Faarax Haywe arrintan uu ku dhaqaaqay dadkiina ay kula culuubeen isaga wixii ku dhaliyay muddo 3 sano yaa warshad dharka lagu dhaqo oo ku taala magaalada Daraman ee dalka Norway yaan ka shaqeeyay kullay mashiinadii iyo qalabkii iyo dadweyne naga hormartay bay ahayd laakiin waxaan halka ka soo ogaaday dhardhaqistu inay wax lacag badan tahay mid kale anigu waxaan aaminsanahay sideedaba waxa aniga shaqo iga celin kara waa kaliya inuu yahay xaraan wuxuu haduu xalaal yahay shaqo waa shaqo noocay doonaa noqotay hadda laakiin dhibaatadu waxay ka haysataa xagga qoyskaagii qoys kaliya ma aha reerkii oo dhan bay iga haystaa qabiilkii oo dhan bay iga haystaa hadda waxaaba socda mooshin qabiilka la iga saarayo reerkan ka dhashay yaaba socda marka qolo kale oo inaan ku soo biiro diyaar u haday jirto hay soo sheegto oday waa hore dhintay oo awowgay ahaa wuxuusan ogeyn hadaan anigu fahmo oo nacfi kala soo baxo isagu saas muuse yeeli jirin anigu inaan uga leexda ma aduu ugu yaraan waxba kaama gelin waxa qoyska ma uu sheegayo anigu go'aankaygu wuu cad yahay ummadoo dhan haday iga hortimaado go'aan gaaro anigu go'aankaygu